laga taabtay si ajandaha iyo koorka baarlamaanka uusan u badsin hoosta laga taabtay xukuumadii dayacday amniga dalka xukuumadii dayacday inay dadka Soomaaliyeed u adeegto maantay wasiiradeediina waxay baajiyeen oo amar lagu siiyay inaysan tagin fadhiga golaha shacabka uu ku furmayo si ajandayaasha isla xisaabtanku uusan uga bilaabin baarlamaanka sidaas awgeed waxaan leenahay shame on you haddaad geesiyaal tihiin oo dadka aad dayacdeen amnigiisii iyo waxqabadkiisii imaada baarlamaanka gudihiisa iska difaaca baarlamaanka dadka dalkan amnigiisu dadkoo dhan baa ugu jirta in laga hadlaahay dhibaata kuma jirto dastuurka in laga hadla dhibaata kuma jirto marka guud ahaan runtii dee guddoonkuna siduu u dhaqmay runtii iyadana si fiican ma ahayn waxaa dhimanaa dhowr iyo 10 xildhibaan wayna imaan lahaayeen waana la sugi jiray 12 furmi jiray duhurkii 12 bar buu furmi jiray kowduu furmi jiray in 5 saac iyo 12 la yiraahdo hal saac baan joogay kadibna lama imaan waana xirayaa arrintaas lafteedu arrin sax ma ahan baarlamaanka sax ku ah ayadoo 2 bilood iyo bar fasax lagu maqnaa oo ummadda ay dhimanaysay oo dhaawacmaysay in maalinkii baarlamaanku furmana la sugi waayo hal saac waxa weeye guddoonka baarlamaanka ayaa arrintaas ku ceebaysan runtii si fiicanna uma dhaqmin xukuumaddii iyo baarlamaankiina waa isdhex galeen baarlamaankiina wuxuu noqday meel xukuumaddu ay xukumayso fadhiyadiisa waa sheegnay waa la sugi jiraan ku dhiri waa la sugi jiray waxaa la sugi jiray 12 12 bar ku furmi jiray 12 marmar furmi jiray 12 bar buu furmi jiray xildhibaanaduna markuu hadlayay xildhibaanaha yimid wuuna furmi lahaa saacadan haddii joogi lahaa marka 2 bilood iyo bar waqti dhumis oo fasaxa haddana maalinkii shaqadu ay bilaabatay in la yiraahdo koorabkii baan buuxsamin hal saacaan fadhiyay runtii arrintaasi arrin sax ma ahayn guddoomiye mursalna lagama filaynin waxaan leenahay yuusan noo celin oo ma noqoto suurtagalna ma ahan in waxaasi loo dulqaato in xukuumaddiina ay wasiiradeedii ceshato guddoomiyihii baarlamaanka golaha shacabkuna uu saacad sabri waayo ayadoo dadkeenay dhimanayaan ajandaha laga cararayo inuu yahay amniga laga hadlo arrintaas waa runtii arrin aad u xun dadka Soomaaliyeedna ma qabato aan wakiilka ka nahay dadka Soomaaliyeed dhimanaysa ma qabato dadka Soomaaliyeed rajada ku xiraya baarlamaankan inuu wax saxo la xisaabtan la yimaado wax qabta ma ahan marka aad baan uga xunnahay shacabka Soomaaliyeed oo tacsiyanayna inta dhimatay iyo inta maanta u soo qaltaagaysa baarlamaankan wax ka soo baxan